خميس لاها وكي الدنيا كان كلها وزيرات وكبلاريا مركا ورد وتكون مع سنتين شركينا نوع زمتان وتكون مع سنتين وعقلوكم مع سنتين إن النوكنتين كوحيه نكل الدواناسي نودي رجليان نورا حسوسيان شقضا شعب الصوماليات يدمان ومد الصوماليات نودي تين سيانو فرن مركا هو الرئيسة وعندك وهم بلينا يا هرتا إن الطلابة هرو قادم ويال كان سوي مادين دمان أما أنت بدن سراكيش سرسرة وككلا صعدا هي أداه كلا الدوان أمنية مثلا دمان قيبها كلا الدوان عيدما غلب كسيدا إن إذنكو سويت مادان إن ترتان خميس والبا إذنكو كشرايا سيد اللود دفاع لها دلك ومد الصوماليين وحلوه قبل لها إذنكو ودجير وشقينا يا رماس وعن نبامر كورورتين عن مهد بلارن وسوجي ديو ثلياشا يوزير ده أي أرنكاس قصيصو وشغفي عن وديري جلينا وإذن كل دردار منا وعن إذن كعطسنا يا إن تسي دردر جلسان إن تاسكسكو وانو مانتا وحن نوقفلنا يجوبابو يهملا الدلكا وحن نوقفلنا فريمي نوشاغان كوحيه كلا دوانا وحرتنا فريماها كلا دوان نوغو ديبي وأنا دوغاتان هذا الذي قيمة بدنا نوشاغان قف صوماليات أيا انتو ميل فريستي أيوه كفكري سيدو دلكي سوى ناجلة مركز السؤال اللي في مريه أدم غليشان سيدو أنك نولا قيبسان لها فنانين تا يا أبوانين تي انتي وقت جليان إني يسوع جيدان هبينا بدن إني فكران كفكران سيدا دلكود وهانجري سيدا ويهاي سيدا أي رجل هايان إنه نوضو وأمهد علينا وإن نقادتان سيدا أترك ملتري يبوليس كي أسلوبتنا بتوجد وقشنتين وكلاي يجون قلبك وقشين نركز إن داس كسكو markay golaha wasiiradu shirayaan ama markay shirayaan madaxda kale ama markay Soomaali isu timaado ama markay makhaayadaha la isugu yimaado ama markay meel walba la isugu yimaado waxa laga hadlaa danaha ummadda Soomaaliyeed iyo sidii Soomaali dibka looga saari lahaa hatta hadii meelaha lagu fadhi ku dirirayo looga sheekeysanayo arrimaha Soomaaliya waxa looga hadlaa qofkee ka tala fiican qofkee qaabkee ugu fiican ayaa Soomaaliya ugu hormariyo qof walba Soomaaliyeed oo ku fikirsan inuu dalkiisa hore u mariyo idinku waa ka duwantiin idinku waxaad uga duwantiin malihidina gobol aad ka soo jeedaan malihidina qabiil aad ku abtirsataan malihidina qayb ama koox aad gashaan idinku waxa aad tihiin marka ay qarannimadu mugdi gasho cidda kaliya oo heli karta nal iftiin leh idinku waxa aad tihiin marka kaliya oo la waayo meel lagu cararo meeshii loo soo carari lahaa idinku waxa aad tihiin marka rajadu ay daciifto ama rajabeel ummaddu ku dhaco ciddii biyo ku shubay lahayd xididadii laga abuuray rajadaas oo dib u soo noolan lahayd waxaana la ku wargeliyey shirkii golaha amniga annagoo fadhina xalay in ay kulankanu dhacayo waxaa salaan idiin soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo rabay inuu yimaado shirkan laakiin maadaama uu shirar kala lahaa aniga iga codsado inaan ku matalo isagoo ah taliyihiinii guud oo ciidamada qalabka sida wuu og yahay maanta inaad halkan ku shiraysaan waxaan rabaa markaa inaad ogaataan
taariikhda ummad walba oo dunida soo marta marka noloshooda iyo midnimadooda iyo horumarkooda ay khatar iyo ciriiri gasho taariikh walba oo aad dib u fiiriso waxaad arkaysaa qoraallo sheegaya in dadkaas ay noloshooda dib u soo celiyeen ciidankooda ay iyagu leeyihiin haddii marka ummadda Soomaaliyeed maanta ay rajo leedahay rajada ay leedahay waa idinka haddii idinku marka aadan fahmina ahmiyadda ummadda Soomaaliyeed aad ugu fadhidaan waxaad qaadar gelinaysaan jiritaanka ummadda Soomaaliyeed وأنا دوغاتان سيدا كلية والضل وليبا لغو قران كرو شرفتا كلامة يهيد الديلة أمدو إسرائيل سيدا كلية أو أمدي أي أو أكتهاي أمد اسكو حران قران نمدو دي ويفتيم يسو وحا إتهاي إني كمو قطعي لمدو maadaama dalkeenu uu soo maray dhibaatooyin fara badan oo aan hadda ka soo kabsanayno waxaa loo baahan yahay inaan leenahay cid ka adkaysi badan dadka kale cid ka dulqaad badan dadka kale cid ka fahmi og macnaha qarannimada ay ku fadhido marka dadka kale la barbar dhigo cid og macna iyaga ka weyn cid arki karta waxa aanay dadka kale arkin cid og Soomaaliyada aan u socono sida ay u tahay cid og inay bixin karto wax aanay dadka kale bixin karin hal cid qof baa jirta marka hal qof baa jirta waa qofkii intuu soo istaagay ummadda Soomaaliyeed ku yiri waxaan diyaar la ahay inaan dhiigayga bixiyo kuwaasina waa idin haddii marka aad u soo istaagteen inaad dhiiggiina ku bixisaan ummadda Soomaaliyeed waa la idin sheegay waxaa la idinku yiri fanaaniintii halkan joogtay in la ilaaliyo midnimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed way dhib badan tahay waa la idin sheegay jidku waa qodxa badan yahay waa la idin sheegay waa la idinka leexin karaa waa la idin sheegay iska jira la idin yiri haddii cid kasta oo Soomaaliyeed ay iska jiri weyso عند مرة والبر للربعين حسوسنا إنه إسكجري كرتوا عليه. سيدا سدرات ده أنا ديري جرينا يا شركة خميس الله هذا سقوط مادام مدحدا عيدا مدح كو وإنا دوغاتان إن الحل مقعود الليل إن هذا النبت سقيت يا أسلوب يا ميلتري يا بوليس يا إميجريشن يا هذا كلا هيننا تتكين هالكن جوجا إن تهين عيدا صومالية إن إذن inaad ka shaqaynaysaan Soomaalinimada maadaama aad Soomaalinimo ay qarannimo iyo midnimo raadinaysaan iyo dalkan oo aad xoreysaan sida kaliya ku xoreyn kartaan waxa ay tahay inaad tihiin Soomaali koow inaad tihiin Soomaali labo inaad tihiin Soomaali saddex inaad tihiin Soomaali kaliya marka aad bilowdaan inaad Soomaalinimada hoos uga soo degtaan waxaad ka soo horjeesateen ballanta aad qaadeen waxaad ku ballan furteen kitaabkii aad Ilaahay hortiisa ugu dhaarateen waxaad been u sheegteen ummadda Soomaaliyeed waxaad ka rumeyn weyseen ballanta ahayd inaad bixisaan dhiiggiin ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay ciidan
garanaya sida aan sheegay macnahooda macna ka weyn waa inaad ogaataan mas'uuliyaddaas inay idin saaran tahay taliyayaasha halkan fadhiya idinka ayaa la idinka rabaa inaad isku soo dhaweysaan ciidamada haddii aad dhar kala duwan gashataan oo xariyo kala duwan ku jirtaan oo idinku aad kala baqdaan sidee baad u difaacaysaan ummadda Soomaaliyeed sidee baad ugu adkaanaysaan cadowga Soomaaliyeed waxaa la rabaa inaad ogaataan qof walba oo Soomaaliyeed ama qof walba oo dunida jooga way la culus tahay wayna ka baqayaan isbeddel inuu dhaco isbeddelku waa wax aadan ogeyn isbeddelku waa berri cidda keliya u gegsan karta isbeddel inuu dhaco marka waa cid rabta inay ummadda Soomaaliyeed u horseedo nolol ka fiicantan hadda ay ku jiraan waa cid rabta in iyadu keliya ay danka leedahay inay ummadda Soomaaliyeed hor u socoto waxaa laydinka rabaa marka idinku inaad ogaataan inaad xambaarsan tihiin macnahaas dad Soomaaliyeed oo naga horreeyay ayaa soo xoreeyay dalka waxay ku soo bixiyeen dhiigooda waxay ka xoreeyeen gumaysi iyagoon haysan xoolaha aqoonta aqoonta aad leedihiin kaamaradahan iyo internetyada halkan yaalla iyagoona dunyada isugu xirnayn siday isugu xiran tahay maanta iyadoo aanay jirin diyaaradaha iyo baabuurta aad maanta haysataan iyadoo aanay jirin dhaqaalaha iyo dollarka faraha badan oo maanta haysataan waxay xoreeyeen dalkooda waxay ku haminayeen maanta in annagu aan ku noolaano nolol ka fiicantii iyagu ay ku jireen waxay ku haminayeen in carruurta ay dhalaan iyo kuwa ay awowaha u yihiin iyo kuwa ka sii dambeeya ay gacanta u geliyaan dalka ay xaqa u lahaayeen ummad walba dad baa u kaca waqti walba oo ciriiriya dad baa ummadooda u kaca dhinac walba markii la fiiriyo waxaa kugu soo dhacaysa xagee baa la eegaa hal meel bay ishu qabanaysaa meeshaas waa idinka taariikhda ummadda Soomaaliyeed ayaa marka waxay qori doontaa meesha aad geysaan ummadda Soomaaliyeed idinka hogaamiyayaashii dalka ah waayo idinkaa oggolaaday inaad dhiiggiina bixisaan annaguna dalkan annagu ma ka ahin milkiilayaal annagu dalkan waxaan ka nahay mas-uuliyad uunbaa naga saaran dalkan waa la wada leeyahay kulligeen baa wada leh qof walboo annaga naga mid ah waxa uu ka yahay mas-uul qaybta mas-uuliyaddiisu ay saartana waa inuu ka soo baxaa idinku waa ka mas-uuliyad badantiin inta kale maanta markaa waxaan idinka codsanayaa inaad qaadataan mas-uuliyaddiina taliyayaashiina halkan fadhiya waxaa laga rabaa inay ogaadaan mas-uuliyaddaas inay iyagu hormuud ka yihiin waa in ciidamada la walaaleeyaa waa in la isku soo dhaweeyaa waa in la isfahamsiiyaa waa inay ogaadaan inuu jiro cadow ku socda ummadda Soomaaliyeed oo u diidan horumar cadowgaas sida keliya looga hortagi karo waxay tahay cudud xooggan waa inaad ogaataan inay midnimadu xoog tahay waa inaad ogaataan inay kala qoqobnaantu daciifnimo tahay waa inaad ogaataan in tusaale loo baahan yahay tusaalahaas waa idinka ummadda Soomaaliyeed idinka idin sugaysaa waa idinku tashanaynaa waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan ummadda Soomaaliyeed gaarsiino Soomaaliyada ay noo tilmaamayeen wiilashii gabdhihii aad noo keenteen waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.